Wadooyinku waa qayb muhiim ah nidaamka isgaarsiineed ee bulshadu isticmaasho. Marka la helo wadooyin, waxaa fududaada isku socodka dadka iyo badeecadaha, waxaanay wadooyinku kaalin muhiim ah kaga jiraan kobaca dhaqaalaha iyo horumarka bulshadu leedahay. Hargeysa waa caasimadda Somaliland, waana magaalo laga dheehan karo horumarka dhanka dhismayaasha dabaqyada dhaadheer, kuwaasi oo kor u qaaday bilicda magaalada. Doorka ganacsatada Somaliland waxa ay u badan yihiin kuwa magaalada ka hirgeliyay horumar magaalo, maadaama ay dhiseen dhismayaal casri ah. Geesta kale, dowladda hoose ee magaalada Hargeysa waxa ay qaabilsan tahay horumarinta magaalada, iyagoo dadka uga mas'uula inay horumariyaan adeegyada bulshada. Horumarinta jidadka waxa ay ka mid yihiin shaqooyinka dowladda hoose, waxaana ka muuqda dayac baahsan, halka xaafadaha qaarna aanay lahayn wadooyin baabuurtu mari karaan, maadaama ay dhagxaanta iyo godadku ku badan yihiin. Sidoo kale, wadooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa kama jirto nidaam kala xadeynaya biyaha iyo wadooyinka, waxaana xilliyada roobabku da'aan wadooyinku isku beddelaan laaga biyo mareen ah oo guud ahaanba hakad geliya isku socodka bulshada iyo badeecadaha kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, dayacnaanta dariiqyadu waa kuwo ku baahsan xaafadaha magaalada, waxaana jira cabashooyin ay dadku ka muujiyaan wado xumada jirta. Waxaan leeyahay wadooyinkan iyo gawaaridan isaysata in wax laga qabto oo burburkooga iyo dhibaatada dhulka ku jira, waa in dawladda hoosena ay iyo dawladda dhaxaba iskaashadaan wadooyinka si wanaagsan u sameeyaan. Caqabado badan baan kala kulanaa, dhakhtar baan ku socday, waqtiga uu iga dhacay. Runtii wadooyinka magaalada gudaheedu way aad u burbursan yihiin. Waxaan u bixiyay wadada nimkaan marayo looma ooyaan, markaan socdo oday weyn baan ahay anigu, breegaan qabtaa wii dhibaa, dabeena kolkaan socdo xoogaa baan yar daalaan gaarigan yar joojiyaa. Laakiin waxaan filayaa ilaahay inuu keeni doono ku ka fikira wadooyinka magaalada caasimadda. Waxaan idhaa marmar malaha soo maraan ilaa la arki lahaayeen hadday soo maraan. Iyadoo ay jiraan ballanqaadyo ka imanaya dowladda hoose oo sheegaya in wadooyinka la hagaajin doono.